dadweynaha ku dhaqan caasimadda dowladda Puntland ee Garowe oo aanu mikrofoonka la dhex qaadnay ayaa aragtidooda ka dhiibtay musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland ee 2019 waxayna dadweynahani cod dheer ku sheegeen inay taageersan yihiin murashaxa madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland ee 2019 Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash oo ay sheegeen inuu yahay shakhsiga qudhe ee waqtigan ku haboon xilkaasi isla markaasna halgamaad dalkan wax badan u soo qabtay in badanna ku taamayay siduu gacanta ugu soo dhigi lahaa gobolada ka maqan dowladda Puntland waxayna xildhibaanada cusub ee dowladda Puntland ka dalbadeen dadweynahani inay codkooda siiyaan Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sidan Puntland maantay waxa loo tartamayaa waa masiirka ummadda waa dalka waa dadka dalku wuxuu ku jiraa khatar badan oo dhinaca amni dhinaca dhaqaale dhinaca muxuu ahaa adeegga bulshada ahaa maantay waxa dalkan iyo dadkan ay u baahan yihiin cid ka saari karta marxaladda adag ee uu dalku ku jiro xildhibaanada sharafta leh waxaan ka codsanaynaa iyagoo dareenkii bulshada xambaarsan in maantay jagada madaxweyne ku-xigeenka oo ay u tartamayaan in ilaa dhowr nin uu u qalmo shacabkuna ay uu yahay ninka ay ku taamayaan in Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ninkaas oo ah nin mujaahid ah nin dalkan wax badan u soo dagaalamay u soo halgamay waqtigiisii iyo noloshiisii inta ugu badnaydna ku soo bixiyay khatar badan u soo maray maanta waa nin lagu aaminay waxaan dhahayaa Axmed Karaashna maanta ku bilaabanaysaa wixii aad u soo jaaday insha Allah biidnillah alkarim baarlamaankuna waxaan ka rajaynaynaa inay codkiisa adiga codkooda ay adiga kugu deeqaaneen aad iyo aad baad u mahadsantihiin mudanayaal maanta codkiinu wuxuu leeyahay hiilo maanta codkiinu gacantiina ku jira maanta masiirka ummadda iyo mustaqbalka dadkan aad go'aamin ka dhaanin berri inta aad ka shalaay lahaydeen sida maanta xildhibaanada Puntland idinka horeeyay ee tagay hadda ay u shalaayaan way dhahayaan 5 sano oo dib u dhac baa dalkan ku dhacay maanta aad ka fikri ka dhaanin maanta aad badbaadin ka dhaanin fadlan noo doora Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash bismillaahir rahmaanir rahiim anoo nin dhalinyaro ah oo reer Puntland ah waxaan jeclahay halkan inaan taageero uga muujiyo Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash oo aan isleeyahay waa nin maanta lagu aamini karo madaxweyne ku-xigeenka Puntland waxyaalaha aan ku taageerayo waxa ka mid ah inaan is oran karo waa nin soo celin kara gobolada maqan inta gobolada Puntland ka maqan goboladaasi aad bay muhiim ugu yihiin in aanu doorno ciddii ma taqaanaa gobolada maqan soo celin lahayd waana laga maarmaan in aan ka fikirno wax walba oo Puntland ka maqan in laga fikiro markii aad ma taqaanaa qof dooraysid aad bay muhiim u tahay in aad ma taqaanaa aad samaysid cid ma taqaanaa aad ku aamini karto codkaaga inaad u doortid boqolkiiba boqol waxaan aad u rajaynayaa insha Allah billahi kariim xildhibaanada cusub ee soo baxay warag dhalinyaro ah runtii aqoon leh waxaan rajaynayaa insha Allah billahi kariim inay dooraan madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen soo celin kara gobolada ayna ka maqan barwaaqo iyo baraarana u horseedi kara Puntland horumar fiican la gaarsiin kara runtii waxaan isdhihi karaa inta madaxweyne ku-xigeenada u sharaxan Axmed Karaash Axmed Cilmi Cismaan waa ninka ugu mudan oo la dooran karo oo madqana madaxweyne ku-xigeen loo doori karo insha Allah billahi kariim aad baan ugu rajaynayaa inuu ku soo baxo xildhibaanadan runtii waxaan kula talinayaa boqolkiiba boqol maadaama ay yihiin xildhibaano dhalinyaro ah aan is oran karo maanta ma aha rag laaluush qaadanaya waxaan rajaynayaa insha Allah billahi kariim boqolkiiba boqol inay siiyaan codkooda Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash awalan ilaahay baa mahad iska leh anagoo marka labaad u ah taageeranana Axmed Cilmi Cismaan oo u sharaxan xilka madaxweyne ku-xigeenka ee dowladda Puntland waxaanu ku taageeranaa waxqabadkiisa iyo waxyaalaha uu soo qabtay dalka kaasoo aanu ku xiganana aqoon dheeriya awna uu yahay nin matali kara shacabka Puntland waxaan ka codsanaynaa xildhibaanada sharafta leh anaga naga matalaya codka inay si hagar la'aan ugu baxaan Axmed Cismaan Axmed Karaash oo ah nin u qalma xilkaas aqoon dheeraadana u leh meelo badan oo kamid ah Puntland ka soo shaqeeyay ogsoonahay in doorasho la jilib doono oo laga doomeeyo dhammaan geeyiga Soomaaliyeed ama geeska Afrikaba halkan anigu waxaan taageero uga muujinayaa anoo nin dhalinyaro oo jaamacadaha ka barta Garowe caasimadda Puntland
taageero inaan ugu muujiyo musharax madaxweyne ku-xigeen Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash oo runtii ah halyey halgamaa geesi dalka u soo halgamay in badanna ka shaqaynayay 20 sano u dambeeyayna si caadi oo untouchable ah garanaysaa ficilkiisa taageeradiisa siyaasaddiisa uga halgamayay dalka iyo dhammaan deegaanada reer Puntland waxaan ka codsanayaa xildhibaanada sharafta leh ee 66 xildhibaan ee matalaya bulshooyinka reer Puntland in ay codkooda ku taageeraan u muujiyaan halyeyga oo magaranaysaa waddanka wax badan soo qabtay tusaale haddaan wax qabadkiisa ka soo qaata kale isna ahaa intuu wasaaradda arrimaha gudaha joogay oo wasiirka ka ahaa wasaaraddii magaranaysaa konsolada iyo dowladaha hoose siduu u dhaqaajiyey siduu dhammaan iyadoo garowgaba aan ka bixilaa wasaaraddu waa wasaaradda meel wacan gaarsiiyey dhammaan deegaanada Puntland raf iyo magaranaysaa degmo weyn iyo tuulaba gaarsiiyey waxqabadkeedii ilaa bari ilaa iyo meel kasta gaarsiiyey waxqabadkiisii oo wasaaradda ahayd marka dabcan waxaan leeyahay waa nin lagu aamin karo waa nin codkiisa loo hori karo waa nin maanta hadduu kursiga ku fadhiisto wax badan bulshooyinka reer Puntland qabanaya gobolada maqana soo celinaya oo rag baaba jira aan hadda iska yimi oo la gobolaan soo celinayo musharaxnimo ku doonaya isaga tusaale kun ciidan iyo 500 oo technical abaad oo ka amar qaato taliyo yahay bajida jooga weligoodna joogo la dagaalamay Soomaalidiidka iyo argagixisada weligood la dagaalamay hadduu kursigaan ugu soo fadhiistana dabcan si dareemayno awoodda iyo magaranaysaa taageerada ay ka sii helayaan ciidanku jaamacadaha wax ka barata gobolka Nugaal ee khaasatan caasimadda Garowe waxaan taageersanahay musharax madaxweyne ku-xigeen Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ninkaas oo waddanka wax weyn u soo qabtay mudana ku soo dhex jiray siyaasadda waddanka waxaan u sheegaynaa xildhibaanada cusub oo dhalinyarada u badan oo annagana matala codkayga nagu matalaya waxaan ka codsanaynaa in ay codka siiyaan Axmed Cilmi Cismaan Karaash waa nin geesiya waa nin soo halgamay waa nin waddanka wax walba og waa nin markii waxa lagu xasuustaa tusaalahan wasaaradda arrimaha gudaha uu joogay wasaaraddii barnaamijkii dib u dejinta iyo barnaamijka dowladaha hoose konsolada qaabka uga soo shaqeeyay haddana wasaaradda budhiska garoomada caalamiga ah oo uga shaqeeyay qaabka uu maamulay waa ninka ugu habboon baa la oran karaa maanta loo dhiibi karo xubinta madaxweyne ku-xigeen ee Puntland bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ka mid ahay aqoonyahanka ku nool caasimadda Puntland ee Garowe waxaan halkan ka taageeranaa musharaxa madaxweyne ku-xigeenka Axmed Cilmi Cismaan Karaash runtii waxaan filayaa inuu yahay musharaxa ugu habboon xilka madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland waxa xusid mudan Axmed inuu ku soo dhex jiray siyaasadda Puntland muddo siyaasadda Soomaaliyeed muddo dhan 15 sano Axmed waa halyey u soo halgamay Puntland iyo Soomaaliya Axmed waa mudan yahay in la doorto mudana xildhibaane u codee codka si Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash waxaan halkan ka taageersanahay codkana ka siinayna kana codsanaynaa xildhibaanada sharafta leh inay sida si xushmad leh u soo dhaweeyaan codkoodan u siiyaan Axmed Karaash